part 2 waxaan samayn doonaa post yani kale ku xigay ayaan samayn doonaa marka waxaan sameeynaa marka waxaan ku laabanaa horta Kenya aan ku laabano hadda waxaan sameeynaa midkan ayaan sameeynaa marka dhamaan marka waxyaabii aan sameeyno iyo layerskiisii waxaan ka dhignay group markii aan group ka dhigno marka waxaan sameeynaa marka waa iska xireynaa marka asaga isha ka qaadana marka isha soo qaadana kadib marka kan baa marka noo soo haray marka kan marka waxaan sameeynaa background salaama qorta background oo sameeyno yani background baa sameeynaa oo cadaan ah background kiisa ka dhigana cadaan ayaan ka dhiganaa isaga waa ka saar marka qaabkan marka soo noo ah waxaan sameeynaa waxaan ku soo gashan doonaa sawirkaani background-ka ah kadibna waan hagaajin doonaa marka sawirkaani qaybta source ayuu ku yaalaa isaguna meeshan ayaan ka soo qaadanaynaa sawirkan waana kana marka sawirkaani waa soo weynina shift aan soo qabanayna taas oo kale halahaas oo kale aan soo leekaysiinaa ilaa intaas kan soo leekaysiinaa okay kadib marka sawirkan dooranaa waxaan tagi doonaa filters kadib waxaan ka dooran doonaa camera raw filters oo waxaan rabaa in sawirkaani aan wax yar edit garayno marka waxaan sameeynaa horta xagga clarity soo kale horta waan xoojin doonaa yani xagga clarity oo kale xogaa baan ku dari doonaa ilaa intaas kan geyn doonaa sidoo kalena contrastigan sidoo kale asana waa ayaan badan doonaa whiteness-kiisana wax yar ayaan ka yareyn doonaa kadibna waxaan leeyahay okay marka hadda background-ka waa kana marka waxaan soo gashan doonaa marka sawirkaani cabitaanka ayaan soo gashan doonaa sawirkan intaan ka soo qaadanaynaa okay meeshiisa qaabkaas oo kale hanagu yaalo isaga waxa way aad u fudud yahay waxa kaloo noo dhimana waxay tahay inaan soo gashano isla liintaani waxyaabahan background meesha ka muuqdo marka isagana sidoo kale meesha ayuu noo yaalaa kii hore ayaan isticmaalay isagana inta kale ka soo qaadanaynaa saano kale u yareynaynaa wax yar kiisaan u jaleecinayna halkaasaan geenaynaa kadibna waxaan sameynaynaa waxaan tagi doonaa isagoo noo dooran baa waxaan tagi doonaa filters kadibna intaan waxaan ka dooran doonaa blur gash blur ayaan ku dari doonaa wax yar taas oo kale kadibna waxaan leeyahay okay kadib marka kan marka waxaan ka hoos marin doonaa cabitaanka ayaan ka hoos marin doonaa oo meesha ayaan geyn doonaa kadib marka haddaan ku laabto waxaa kaloo meeshan ii dhiman waxay tahay magacaan caadiga oo ice-ka marka magacan waxa weeye waa isla magaca cabitaanka waxa lahaa marka text tool baan soo qaadanayaa meeshan baa waxaan siin doonaa click kadibna marka waxaan qori doonaa magacaani cabitaanka oo I double set kadib marka waa ka saa farta marka madowgeeda iska ahaato okay fartana waa bracket farta waxaan ku dhigay qaybta source-ka marka waa taasaa marka saan kale u soo weynaynaa okay kadib marka wax yar marka waxaan rabaa marka inaan kala jiido fartaani wax yar inaan qaabkaas u kala jiido marka shift hadda lama qabanayo qaybtana waan ka furi doonaa wax yar ayaan saas u kala jiidayaa fartaani kadib marka waxaan sameynayaa waan qalloocinayaa farta waxaan rabaa inaan saas u jiifiyo qaabkaas oo kale ayaan u siixinayaa marka farta meeshaas oo kale aan geynayaa okay kadib marka farta hadda waa black sa u jeedid marka waxaan ka yareyn doonaa colorka ka dhigi doonaa ilaa halahaas kale aan geyn cabitaanka marka waxaa soo weyninayaa intaas kale ayaan soo gaarsiinayaa kadibna marka waxaan sameyn doonaa waxaan ku dari doonaa layer cusub ayaan ku dari doonaa layerkan waxaan ka hoos marin doonaa cabitaanka hoostiisa ayaan geyn doonaa kadibna waxaan soo qaadan doonaa isla brush toolkii haddeer oo waxaan u sameyn doonaa hoos ayaan u sameyn doonaa wax yaro shadow meesha ayaan siin doonaa click si loo maleeyo cabitaankani inuu meesha yaalo marka waayahay hadda marka waxay dhiman waxay tahay kan waa soo geliyay waxa kale dhiman waxay tahay waa qoraalkan yar ee hoose ee haddeer aan isticmaalay kii hore marka qoraalkan waxa sameynaysaa text tool soo qaadanaysaa saan kale u dhigaysaa kadib marka qoraal waxa ka soo buuxsamay doona default hada qaabkaas ku yareyna farta qoraalkan marka waxa weeye waa qoraalkan caadiga ah oo default-ga ama Lorem Ipsum oo meeshan yaala marka inta ka soo qaadanaynaa adna waxaa samayn kartaa qoraal caadi ah oo hadaad meeshaani hadaad text toolka qaabkan kala meesha u saartidba waxa ka soo buuxsami doona qoraal default ah marka qoraalkaas way kan marka sana waxa way shaqayso asama badnaynba intaana ayuu ku ogyahay way kii labaadna hadda sidaani ayaan ku sameynaa baartiisii labaad marka hadda marka waxaan rabnaa inaan save garayno hadda waxa noo sameysay waa laba post kan marka hadda layerskiisa oo dhan waxa ka dhigi doonaa group ayaan ka dhigi doonaa marka intaan ka dooran doonaa saan kale ayaan soo xiri doonaa dhamaantood marka isku doorto kadibna waxaan leeyahay control G ayaan leeyahay wax ka dhigi group marka hadda waxa noo sameysay waa laba post waa midkan kore hadda mataqaan hadda groupkan haddii aan kor soo mariyo kaas qaabkan buu noqonayaa isha haddaan ka qaado
hadda marka waa laba group yani waa group 2 iyo group 1 marka waa laba boosti marka hadda labadan boosti kan isha hada ka qaado waxa soo bixi doona kii hoose hadda kan xirana waxa soo bixi doona kaas soo bixi doona marka si marka aad u save garayso marka waxa weeye waa hal boosti waa laba boosti laakiin ku jeeda isku hal artboard marka si marka aad u save garayso waxa sameynaysaa hadda labadan group ba isku dooran doona qaabkaas oo kale waxaan la qaban doonaa shift kadib waxaan leeyahay right click kadib waxaan leeyahay export as ayaan leeyahay meesha marka waa kana marka waa 1 iyo 2 waa laba boosti caadi marka waa save garayna marka waxaan leeyahay export okay meesha marka aan dhigan doono hadda tusaalahaan oo kale waxaan iska dhigi doonaa kale meesha ayaa ku save garaysan doonaa kadib waxaan leeyahay export marka waxa ay noo yeelaan halkan hadda labadii boosti waa 1 iyo 2 marka labadani booster ayaan sameynay dhamaan waxa weeye source waxyaabo aan isticmaalana waxaad ka heli doontaa source-ga isku soo dir insha Allah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah YouTube kana subscribe gareeya waxaan filayaa inaad wax un ka faa'iiday casharadani mahadsanid